على سيدو آدم ومحسنته runtii wax badan aan imaaday Ohio waxaan imaadaa ma taqaana April marka la qabanayo ciyaaraha barnaamij cusub waaye على سيدو haddii laba qof sports ay aruuriso waxaan ku tala jiraa inaan imaado taariikhdeedan haddii aan sheego hadda ka hor internetka ku aragteen ninkii ugu horeeyay oo Ceelbuur Burundi geeyaa waa true story Burundi waxa la dhihi jiray Goomaduur Abu Curba hataa ma hayn soo ma gaarin adinka waa Burundi asaga dhanba male meel aariyo looga shubo dhulka hadda ku dhufay iska boodaya waxaan sameynaa marka meesha waxaan tagi jiray iskuulka ku yaala barxada ku taalay dadka dribbling ma yaqaaniin 20 qof aan macnaha dribble garanaya way soo raacay oo u gambinaa tabana dhacayso maalinta bacdi cunuga dadku laay wala xira banoonigan kulli jira dadka marka ana hooyo waxa waaye على سيدو soo sheegay raalaan islaahayn maalin wada soo wacay tan hadda waa hordhici macnaha waa qori turki laakiin xafladda weyn insha Allah anoo diyaar ah inay iman doona waxaan kaloo inii sheegayaa macnaha Soomaaliya hadda dhibaato ka jirto dhalinyarada aan xasuusana dhalinyarada badankeena waxa laga yaabaa Soomaaliya inaan la soconin dhibaatada koowna haysata laba cadow baan arkaa dadku waxay malaan dadka waxa qarxinay waxa ka daran social media number 1 number 2 waa qabiilka dad badan waxa jira social media waxyaalo qalad galiyo ama qabiil caynaayo ama iyagu sacaynaayo ama waxyaalo fool xun galiyo qabla dumar waxa arkay hatta ninkooda wax ka sheegayo dhahayo waa artay adinkuba ninka ma qarsana marka run ahaantii awishin social media ama internetka Soomaalida in laga wada xiri lahaa number 1 waa cadowga na haysta waxa kale oo jira for example waxa ka dhacda Atlanta dad badan baa waxay ugu yeeraan meelo shir lagu qabanayo ama qabiil ku socdo ama goboleed ku socdo maalin way true story sheegay nin baa yimid anoo iska jooga Jubbaland baa la xusay dadka dhan qabiil wax ka wada dhasheen ana ciyaal xamar ahay qabiil kaan ahayna waxaan ku ogaaday Saudi Arabia 1978 markaa tagay waliga hooyadeena anoo yar dhimatay qabiil leeyma sheegin aabaheena wuxuu iska iska shaqaysta laakiin meeshan ka soo jeeday dadkayga waa aqaana nin baa yimid wuxuu talbaan nahay $2,000 ku siinaya nin baa imaanay wasiir kaale ani asaga gacan bay naga gaartay I'm not for sale laakiin haddii tahay banooni tahay waa tagi lahaa marka waxaan idin sheegayaa kaleeto intaan joogo gelin dhalinyaradeena macna inta ku dhalatay ama ku kortay waa ka nadiifsan yihiin dadka waxa wadanka qarribayana to be honest waa dadkeena qurbaha jooga Soomaaliya hadda tagtid nin walba survival ku jira hunguru raadinaya nin muufidiisa maraq ugu jiro oo lacag haysta ayaa qabiilka isticmaalo qabiilka naftiisana wuxuu ku sheegayaa magaalada Atlanta degan Douglasville meel yaradan degan qaarkiin waa aragteen oo maanaya 50 miles magaalada Soomaaliya u jirta ayaalkayga meesha ku dhasheen meeshaan iskoolaadkeeda aad u fiicna nin baa maalin yimid baabuur baa leenka ka baxay macnaha tagaasi baan lahaa nin baa yimid wuxuu ugu yiri niyahow waxaan rabaa gaarigaas inay siisid ninka isku cid baan nahay laakiin ma aqaan aniga niman buu soo watay xirnay talbaan nahay gaariga waxaan niyo dhageysto talmani been ay sheegaysaa hadda ilmahayga mid kamid ah magacooda sheegtay wallahi gaarigan firiyaan kugu siinayo ninka wuxuu ugu yiri warnimo ilmaha koran kala socdaa hadduu idil hal cunuga aan dhalay magaciisa sheegi lahaa gaariga waa siin lahaa marka qabiilka waa la isku siraa anigu waan in baan siinaya maalinta u baahan tahay wallahi saaxiibkaaga ama ninka xidid tihiin ama dariskaaga wax ku siinaya marka taas halkaas oo ga baxaya waxa dhacday maalin dhaweeyta magaalada Burco aad baan joog uga sameeyaa nin magaalada Burco ka yimid oo laga yaabo dad Burco ka yimid inuu ku jiraan oo ayaa wuxuu tagay daabshiil baa wuxuu ka samaystay hotel weyn Hargeysa oo 6 dabaq
waa true story mid burca ka yimid oo dheer 7 food baa soo galay meesha elevator buu leeyahay waa elevatorka ugu horeeyay hotel lah daabshil baa samaystay ninka bakoorad buu wataa wuxuu rabaa dabaqa saddexaad inuu tago bakooradii ku mudo mageedkii mid yar oo nuur wax isku yihiin oo barbare ka yimid nuur warsamo ka taqaan oo ilka guduudan oo gaaban baa soo galay kana waa 7 food ninkan bakoorada wata wuxuu rabay dabaqa afraad inuu riixdo kii bakoorada halka ka galiyay waraaba nacala ku yaal baalka anaga wadana faraha ka qaad waa true story hadda daabshiil wuxuu sameeyay qof loo qoray nin baa meelaha ka arsaaqo meesha dadka saara baalka marka waxa kaloo jira mid saaxiibna maalin dhaweed valentine muxuu ahaa leebir koor mu ahaa waa true story allaana ka dhacday shalay soo wacay mid saaxiibna saddex sano jooga wadanka xaaskiisa waxay tiri ariga maanta waxay tahay ma la socotaa hay'atu yiri maanta ariga valentine waa ay tiri valentine oo yiri marka tiri maalinta jacaylka waay jacaylka sheegaysa waxay tahay maalin kasta ku jecel aniga marka ummadeena waa mashaakil waay dhaqankaaga lagama tago valentine maxaa ku geystay nin kale saaxiibna professor waay jaamacadu dhigaa wuxuu ka dhigaa Louisiana naag cadaan u qabay waa true story nooy ninkan weligiis kala saanayn naagtan waa yimaada ninkan mar guriga yimaada waa iska xanaaqsaya isku dhaqan ma ahan naagtu waxay tiri dhageyso saaxiibada soo waxay waa qoslaya saaxiibada ga jecesha war hadda xaaskayga taa saaxiibada gooni waay maalinta buu xanaaq dhageyso yiri 60 sano jiro yiri ahabnaba siin aabay hooyada dhaay I love you waa run waay naagtu waxay kula maxay taas ugu dhacbiyeen ma nabcay dhaqankeena waay waxaan waa fake I love you dan isku dhagay laakiin niyada nin walba xaaskiisa ilmihiisa waa jeceliya marka waxaan ii sheegayaa waxyaalo badan oo dhaqanka ka baxsanaa jira waxa kaloo dhacday wax ka yimid Minnesota ma jiro gruubkana ka yimid nimanka qabri baya hadda guryaha San Claudio kulli guriyihii inoo joogay ilaa 200,000 40 kun ay marayaan sababtu maxaa mataqaanaa nimankan qabri baya baabuur cusub bay kateen jiirada waxay ku galaan 9 miles per hour islaamay waxay ugu tageen oo jeefo gurigoodii qolka ugu tageen guriyo dhan farseel baa lagu qoray waxa kaloo jira mid kale oo qabri baa ka yimid waa maalin dhaweeyta blizzard xun baa ka dhacay Minnesota -40 -50 ahayd mid baa yimid cusub golofyo loo soo galiyay warada oo gacani baa ay koogay saaxiibka golofyadii maruu gashtay maalinta golofyo iska tuuray waxa dhacay taa cuntadii bas kale u dhadhamaysaa kula waa true story golofyadu ku qoraa walaga ma u geystay baad wax la dhaafay male ko kala qaraabada fuaad qaraabiyiino fuaad ba baqaari saaxiibkay ko qaraabada inuu wuxuu ka yimid jigjiga waartay Soomaalida hargeysu yimaada ninkan xoolay waxba ka taa hadhow dukaamada tagaya cunto iyo waxaas gadanaya wadiib aadaya ninkan waa businessman every week waa yimaada gabar macnaha shidan ma ninkan aragtay gabadha xasrinay ninkan lacag u leeyahay ninkan waa single gabadha ku dhacday ninkii ilaa ninkan badow waa gabadha markay ku dhacday ninkii waxa waaye gabadha uu guursaday dhowr sano ka bacay 3 ilmood u dhashay ninkii gabadhan gabar iska reer magaal ahayd ninkii wuxuu yiri naagta waa furaya Soomaalida warta hadii aad gabadhu ay fiican tahay cidda ka celinayso ninka waxa la yiraahdaa gabadha maxaa ku furaysaa dee 3 arrin baan uu ku furay waxa la qarinayaa iska yar maxay taaleeday koow kula maran guriga soo galo way ugu soo ordaa xabiib ay tiraada war aniga xabiib la meelaade war sama dheer la yiraahdaa kulaha waa true story markii labaad waxay ku leedahay mar alla marka cuntada soo dhigto qaadi yar bay daf soo siidanaysaa sugi maysa hambadeeda haye tasdaxaad habeenka marka xajoonayno gacan bay daf kula soo leedahay kulaha sugi maysa ana iska godlana kulaha أنا وأنا بدو كوري لك ودرجة
waxaa jira koo kaleeto inta ka dhacday Columbus last week dhacday qayla adeerkiis waano waa 614 waay odaga shaqo ka soo baxay 2 o'clock odaga waa warehouse ka shaqeeya xoogaa garaabana ku guro waa nin 70 iyo xoogaa jira askari qabtay Soomaalida waa artay askari aragto aniga ku dhacday shaqadaas kale weyn sheegaya askari hadii ogolaasho soo istaago waa iska khalkhalaysa askarta Soomaaliya dadka abuse garan jirta Mareykan u malaysa odagii waa gariir askariga waa arkay ninkan waxa la yiri hal ku soo caleeyay maxaa nin 75 jir oo warehouse soo tumay allagu ma ku socon karo odaga dhinac wax u dhaxay odagu aan yiri farteeda raac waa artay markii diyo ay ninka lagu qabanayo farta raac leeyahay marka inaa farta raacid ma ahan waa inaan ka raacdaa odaga farta ninku baqayno dharbaaxo saan u raaca odaga afartigida loo dhiibano waa cabsan yahay leeyir odaga afartiga waana la xeer adoo wacay islaantii iyo gabdhihii waa yaabeen war odaga mar diyo ay war ninkan diyo ay ma ahan leeyir ma taqaanaa waa nin iska waraarsan mashaakil baa ka dhacay marka waxa waaye islaanta maartay oo media dhahaysa waa la raacdeystay askari raacdeystay maartay inuu islaanta sheekada waa xad ana farsameyay wallahi aniga ku dhacday Virginia jooga marka social media waxyaalo badan aniga aan sheegay oo waxaan ku arkaa niman joogayga sameynaya hadda waxa ma sheego waxay ugu walaacsadaa islaanta galmudug ka timidno waa true story waay farsamo yaro waay booliiska ugu shaqeeyay soo raadaysta inuu islaanta waa farsamaysan marka aad iyo aad u mahadsantiin ya qoore waa taqaani oday qoore maqaad banaadir ka shaqeeya darag maqaadis ما لا رأت باور قط وتروسورين هاي باور كلا بقول كنت لك بحي هذا مارس يكلف لنا المدافع نكان لا يرى برافوني بلا اسمه مرشا قرر وعارك جاس كوراه قرر ما هذا عرق جاس كذا ما تقولها جاد الأرض يا قرر ما تغنوا قرر نير معن عيال سيك على صلاحي إنه أيوه نكان قرر wuxuu ka shaqeyn jiray maqaayad oo Charlotte ku taalo wuxuu ka shaqeyn jiray meel warehouse odaga qurre waa soo aan ariya mataano eebo meeshan aan ka shaqeeyaa kula islaamo burburina Mareykan madow aan meesha ka shaqeeyay assemblyga baaka Soomaaliya sticker ku dhijaha asar riixa shaqa qabowa qurre Ingiriis fiican ma yaqaano maalin dhameeto meesha busa ka dhacay naag qurre waa hindisano balasiyo aliir هذا أنا بلس في ألير ما أنت اللي بعد ناقتي مذوبة هندستي قرر بلس إنه هذا الربع ما لها شيء وكله أنا شاكرنا ما لها شيء ناقتي مدرسة أفريقيا كان سفاري هذا إنجليز كأوجو ينو تراكم قرر عاوي جديد شرطي وكم قلها يعني صباح جديد جديد أيام قلها قال شو تفضيها أنا فيري كلف لاني بركة مريسد سيفي أستا أنا إذا باور تويوتا كامري يلا فيري قال يقول روا ماشي وقتك مركا هنا أيوة أشياء كذا أنت بدن إن شاء الله مركا عيارها لقبنا يعني دقايا آدي أمها سنين على سيدو يفعل أنا أشياء كلا إني شيء ترو ستوري واتنا وعيارها سياكا صداعي هذا بركة يمدي إسلام قلبه كيمدا أسقبنا هذا مركا هذا الناس مسكينة وذا ذا ده كان بركة يمدا ولا هذا بركة شوا بدأت كيمدا حاجات وبدأت وده ديس ناس كيبدين هذا إسلام توالبت هذا مركو دعاء يستا مركو صلاة كذا هو دعاء يستا مالك نفتك إله ربي ومدان متكفي عنه خير قبته يصير ولاده هذا ما أنت ما أسوي دعاء يستا إله وبركو الإسلام تسوي أجستاكت وما دي كرم وقته إلهي وأرنت تسكو غير نوع تقولها إلهي هذيك بينها ملسا والله على سيدو مركي شغاله قرن كان 1977 كان هاي سكول كبح سكول بنادر بري الله يقر هذا ما حاجه لي هذا قدامكم عبر سيدايستي
بس حمر مركب بري مركب لو قرن مقالير اللي جي قرداك تدا إنه يدك قفك وقدر بوفور فيدوا ولي يا الله نورش دتك ويست أفريقيا دقن وبيج مسكلي هذا عمله أنا مركان تجي وهيقول لهم ورد جال عور بايشمن أنا كأقدر أنا ويرش أسكت كأنه وروا كاس وين قرارية هاي سيد واترو ستوري إنك دكتور كا وهو قرأ في الصومالي سوقين بالهذا في الصومالي كان أنا يا حمر أسكاها وابيقو قصلايا قبل وحاجر مركا ورقو قستري وعيالك دتك صومري معناها وقت قاس وعلى اسلانتي سابها العنايا لباحه كعني ودا قبل قلت لي وقبل في هذا في عنها ولا حاله كولولدي ميا ريرو قمي وايين كلغي ardayga meel uu kali على عليا انا ardayda u sharaxaya odayga kaasamaydiisii oo soo socota libaaxa qaramsadano aan leey waa lagu qoslaya magaalada loo xalil macallin dhaanaan la keen أنا ما ترى ستوري أنا ما له صعدة بوفس يقول عاي لا بد غفا شكل سنة سبوا حوها حسابه أنا يقول الله ير بريا أن أسكو خلاها يركب إنه تكن تدفع حوها برنا سا اسكجوك بس هذه والله ما أنت باورا صرع قدامي محمد حاجة من ورناش نقول ماري الماء أقوله كريا بين أوح أقوله بجرو كاس بلارا اللي يقرنه كاس بلارا كابو تقنينه كابن هو كاب متغنين عبد الشكري ولكس ها نو بالو جاني نو هذا بالو جو كدا 50 نو ولي منك قرابه 95 فنسي هذا وعمل له كل كره عمل شيء انك شيء لكن يا الانترنت كل قلنا ما مسكت صاحبك وين اخوي يا سعودي وائل بن اخوي اعملوا حضاره اصلا مره marka aad iyo aad u mahadsantiin waa sheekooyin badan oo waxaa jira inuu soo xasuusto aan baahanahay marka insha Allah waa no April marka ciyaaraha la dhigayo thank you